runtii farxad ayay ii tahay inaan caawa halkan hortiinaan soo fariisto oo aan idinla kulmo inkastoo wejiyada horteyda ka muuqda boqolkiiba 60-70 aan garanayo waan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh oo aad isku soo abaabusheen anigana uu ilaahay i waafajiyey inaan toos halkan u imaado alxamdulilaah mahad kadib sida saaxiibaday iga horeeyey Tarzan Al-Adaala iyo wasiir Maxamed ay sheegeen dalka xaaladda uu ku jiro sidii hore way ay dhantaa meel fiican ayay maraysaa targetkeena ama hadafkeena ama goolkeena waa doorashada marka koowaad waa doorashada marka labaad waa doorashada marka saddexaad waxaa dhinac socda waajibaadkii dawladda ilaa ay dawlad cusub ay ka imaanayso oo ah horumarinta waxqabadka oo ugu horeyso waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan adeegyada asaasiga ah ee dawladda ay u baahan tahay inay bulshadeeda u gudato taas waa inoo labaysaa waana arinta ugu muhiimsan oo dhinac socota doorashada saad la socotaan caqabado badan ayaan ka soo gudubnay maanta waxaan ra'iisul wasaare ahay 11 bilood oo dhiman 6 maalmood 17 September aan maqashaan alla i doorta aniga alla i magacaabay waxaan ku dhaartay inaan fuliyo wixii lii magacaabay 17 September ee ahaa doorasho dadban oo ay ku heshiiyeen dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka alxamdulillaah maanta doorashadii waa ay socotaa sanadkii waa uu bilowday nus ayuu marayaa hal maamul iyo dawlad goboleedyo iyo ayaa noo haray laakiin waxaan rajaynayaa labada beri ama saddexda beri oo soo socoto inay ka wada faraxashaan sanadka kadibna aan u gudubno oo aan kulanno aan isugu imaano meeshii aan ku heshiinay hadda xamar aan noo ballansanayd inaan wiiga soo socdo aan ku kulanno kadibna aan diyaarino qorshihii aqalka hoose ama baarlamaanka xubnihii baarlamaanka sidii loo diyaarin lahaa ay doorasho u gali lahaayeen aan ku wada heshiino waana iswada ogol is-aaminaad iyo isla socod ayaanu ku heshiinay dhib dheer kadib markii la soo maray 27 May heshiiskaasi wuxuu dhigayay inaan aniga iyaga ii idmadeen aan hogaamiyo shanta dawlad goboleed iyo gobolka Banaadirba inay doorashadu ay ku socoto hab isla socda isfaham ma iswalaalays sidii aan ku wadnaa dhamaanteen insha Allah ninkii haday su'aal weydiiyaa jiro maxay doorashada loo dadajin la yahay waxaan ku wadnaa xilli adaga la soo maray hadda xilligii maaha 2016 hadda waxaa lagu jiraa 2021 caqabadaha dhacay dhibaatooyina dhacay waxba la kala tirsaday dalka xaalad adag ayuu qarku u saarmay oo ah in civil war ama dagaal sokeeye dib loogu noqdo saa darteed waxaan ku wadnaa isla ogolki hal qof kuma degdegayo laba qof kuma degdegayso waa in la isla socdaa oo la isla ogolaada waxna heshiis lagu yahay sidaasaan ku wadnaa waxa marka baahinta keenayna waa taas mid kale dhinac socotana waa dhaqaalihii doorashada saad la socotaan doorashadan waa ka duwan tahay doorashadii hore degmooyinka halay ahayd 2016 hadda waa labo dadka gudiyada wax dooranayo waxay ahaan jireen 51 maanta waa 101 marka wax kasta waxay noqdeen laba laab Soomaan marka waxa loo baahan yahay taxadar iyo in si miisaaman looga fikiro dhaqaalaha ku baxayo lacag waxaan ku qiyaasnay 26 milyan ah wali inteeda badan nooma soo xaroonin hadda 7 milyan iyo anaga dhinacayna qayb ka imaanayso ayaa diyaarinay inta kalena markaan isku imaano oo aan ku heshiino qaybtii labaad ee baarlamaanka ayaan iyadana war ka soo saaraynaa sidaan hore ugu sii socon lahayn laakiin dhammaanteen way naga wada go'an tahay waxaa soo hartay wada shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda
waxaa la yidhahdaa doqoni meeshii lagu dagaashay ogeeday meeshii lagu heshiiyey ma oga waa heshiisaan nahay dalkaas haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas qarow ka sii dhacaya aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa dalkaas ayaa naga weyn wax caqabada ama wax iskhilaafa ma jiro warqadaheenna waad aragteen taydiina waa akhriseen soo maahan cid aan adtaagay iyo cid aan ka soo horjeedo malahan wada shaqayntan waa waajib weyn taasaasaan uga baxayaa xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dalkan waxaan ku noolaa 13 sano 11 bilood aan ka maqanahay soo maahan waan ogahay Soomaalida ku nool dhaqaalaha naga yaallo caloosheenna waay xoolaheenna yaallo dadkeenna yaallo indhaheenna yaallo wax kasta yaallo qof arkay kaliya aan fahmi karee qof wadamada Yurub jooga ama wadamada kale Afrika jooga ma fahmi karo waxa halkan naga yaallo saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday u istaagay inaan isku dayo inaan soo celiyo xiriirkii labada dal ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya xiriirkaas oo ku salaysan mid siyaasadeed mid dhaqaalo mid amni waxaan idin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaan laba reer oo daris ah aan tusaale u soo qaadanayaa laba guri isku dhagan laba ciidood degan yihiin markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda may kala qaataan mise marka hore waa la dhayaa marka hore dhaawac la dhayaa Soomaan aniga dhaawacii inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano saa darteed waxaan rabaa inaad ogaataan inaan wax saxiixo halkan uma imaanin waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inaan u sheego wiilka iyo gabadha Gaarisa joogo wiilka iyo gabadha Kismaayo jooga Jigjiga jooga Muqdisho jooga Hargeysa jooga Garowe jooga Jabuuti jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin Gaalkacyo iyo Hobyo jooga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin dhulka cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan maanta igama filanaysaan berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayno jawaab inay ka soo baxdo ka hadalkeeda iimana bannaana mana ii bannaanaan doonno jawaabtaasaan sugaynaa madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay saas hortiisa uga sheegay lama gamban isagoo ay hor fadhiyaan saas ugu sheegay waa lama taabtaan meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxyaabaha saaxiibaday labadan bari al-Cadaala Maxamed wasiirka arrimaha dibadda 4 saac iyo macallimow nafta laga qaaday say u difaacayeen war wax ma saxiixin wax ma yeelin Soomaan cid wax saxiix ma lahan taa ogaada cid saxiix doontana ma lahan intaan joogana hadduu Ilaahay awooddaas siiyo cid ku xadgudbaysa ma lahan wixii Ilaahay naga siiyo heeg ayaan arkaynaa jawaabteeda markaas ayay u taallaa wixii ka soo baxa dawladda Soomaaliyeed oo hadda joogta ama haddii ku soo aado dawladda cusub oo dhalanayso waa hawl u taallo waxaan maqli jiray Soomaalida 100% oo muslim Soomaan markii la isqabto mid kale rabeen la xumeeyo waxa la yiraahdaa murtad Soomaan markii siyaasadda la rabeen la isku xumeeyo waxa la yiraahdaa badu soo saxiixaya cid badda saxiix karta malaha cid ku dhiiran kartana ma jirto